iyadoo maalmihii u dambeeyay warbaahinta madaxa bannaan ay baahinaysay in madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar Ilay lagu jirdiray xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya halkaas uu ku xiran yahay ayaa arintaasi waxaa ka hadlay oo walaac ka muujiyay waxgaradka siyaasiyiinta aqoon-yahanada nabadoonnada isimada gobolka Bari kuwaasoo maanta kulan ku qabtay magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga ee Puntland waxayna dowladda Itoobiya ay ugu baaqeen in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar waxay sheegeen waxgaradka nabadoonnada cuqaasha siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada inay jiraan dad badan oo dowlad deegaanka Itoobiya dambiyo kala duwan ka galay balse aan xabsiga la soo dhigin iyadoo aan la garanayn waxa uu uga duwan yahay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Itoobiya dadkaasi iyagu dambiyada ka galay dowlad deegaanka Itoobiya ilaahay baa mahadle marka hore anoo salaadiinta reer Puntland khaasiyan gobol Sanaag beesha Maxamuud Harti isimadeeda caanka oo la yaqaano Garaad Cabdirasaaq Maxamed Cabdiraxmaan arinta xarigiisa midaan raalli ka nahay maaha arrimo badan oo jira oo la sheegayeen waa jiraan gaar ahaan haddaanu ka sii hadalno qoomiyadda daaroodka ama jibirdiinta meel kasta ay joogaan anoo ku hadlaya afka dhaqanka jibirdiinta ma raalli kama noqonayno arrinaan raalli ka nahay ma aha meel kasta ay joogaan aala jibirdiguna arrinkaa isha lagu hayaa dawladda Itoobiya saaxiibtinimadayada iyo wanaag noo dhaxeeya waxay ku xiran tahay Cabdi Cumar bay ku xiran tahay arrintaasna il gaaraan ku eegaynaa waxaan ka codsanaynaa dawladda Abiy Ahmed inuu arrintaas si aad u qoto dheer oo ugu dheer inuu uga fikiro ninkaan Rahmaan Rahiim aniga Maxamuud Cali Shire jaamac guurtida Puntland kamid ah waxaan doonaynaa sida ugu dhaqso badan in loo soo daayo Cabdi Cumar Ilay madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga dadkii kale lama taaban si gunnimo baa loola dhaqmay si xun baa loo qabtay raalli ka noqon meel dowladda Soomaaliya waa inay arrinta ka hadashaa oo madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu kala hadlaan Abiy Ahmed الله وبركاته magacay waa Saciid Axmed Maxamuud waxaan ahay odayaasha dhaqanka ee kamida Puntland waxaan ahay odayaasha Soomaaliyeed sida horeba la idinku sheegay aqoon-yahamintu ay sheegeen waxaan ku hadlaynaa arrinta ninkaas mid wada taabatay bay noqotay mid aanu aad uga xumaanay ninka madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar bay noqotay waxa weeye qofka madaxda ah khalad waa geli karaa laakiin markasta ciskiisa iyo yani ixtiraamkiisu leeyahay in si gaar ah loo duleeyo qofkii maaha kilaalada kale lama qabaan waa wax isaga u gaar ah arrintaas waxay noola muuqataa Soomaalida si gaar ah in loo faquuqaya mana oran karo yani anagu odayaal inaanu heerka ka hadalno maaha arrinka waxaan codsanaynaa oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ka codsanaynaa Abiy Ahmed inuu soo daayo xorriyadiisa dib u soo celiyo inuu madaxweyne Cabdi Cumar Ilay madaxweynihii hore ee maamul goboleed maamulka Soomaalida inuu xorriyadiisii dib u helo iyadoo aan ognahay kilinka Soomaalidu inuu ka mid yahay hadeer kilinada Itoobiya hase ahaatee waxa la yiri miskiin baa miskiin la fuuro leh anagoo og wixii ka dhacay kilinka Amxaarada anagoo og wixii ka dhacay kilinka Oromada anagoo og Itoobiya xaaladeedii iyo jawigeedii dhan maanta in madaxweynihii hore ee Soomaaliya si gaar ah calaamad loo saaro waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Itoobiya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha furfuran ee siyaasadda cusub gaar ahaan geeska Afrika ku cusub la yimi aan ogsoonahay guud ahaan gobolka inuu ka dhigi karo siyaasad midaysan iyo isbedel la jaan qaada isbedelada reer galbeedka iyo ka caalamka waxaan ka codsanaynaa in madaxweynaha uu xorriyadiisa helo maadaama uu madaxweyne hore ahaa siyaasadda kilinka Soomaaliduna ay iyaga u taalo wixii isla xisaabtana cafiska iyo maaragtay dadkan jigjigana waxaan leeyahay waxa weeye bowdo rag maalinba mid baa qaawanay waa madaxweynihii hore cizi buu mudan yahay waagi mamaalika albahriya shajaratu durri ay haysatay ii sheeg xilligii intaanay tataar ku soo duulin dhulka islaamka boqortooyo ay gabadhaas muslimadda ahayd qabatay ninkii boqorka ahaa waxay tiri caamiluhu ka annahu mulku inuu boqor yahay sidiisii ula dhaqma isagoo xabsi ku jira islaamkuna wuxuu qabaa maaragtay haddaanu Soomaali nahay qofkii maaragtay meel madax ka ahaa haddii la qabto
in sidiisii madaxnimada ahayd loo maamuso oo aan loola dhaqmin si ihaana baaqan ka soo baxay maanta waxgaradka nabadoonnada iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada gobolka bari qaarkood ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli qoyska uu ka soo jeeda cabdi maxamuud cumar oo shalay la hadlay warbaahinta qaar ay walaac ka muujiyeen xaaladiisa nololeed ee uu ku jiro xabsiga magaalada Addis Ababa waxaana ay ku baaqeen in dowladda Itoobiya ay cafis u fidiso. xasan heykal kalsan TV Boosaaso.